iyadoo afartii bilood u dambeeyay bulshada reer burco si weyn u hadalhayay kawaanka xoolaha magaalada burco isla markaana ay si weyn isugu mandhaafsanayeen dawladda hoose degmada burco sidoo kale shirkada dayb iyadoo waqtigaasi mas'uulka ahayd kawaankani haddaba waxaa maanta kulan wada jiraya maamulka gobolka ka degmada sidoo kale shirkada dayb munaasabad kobana lagu qabtay dawladda hoose ay goobjoog ka ahayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha balasaabka gobolka togdheer maayirka degmada burco xildhibaano salaadiin iyo waxgarad ayaa halkaasi ka akhriyay qodobo muhiim isla markaana la isla qaatay xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi bidhi ayaa wareyn halkaasi ka akhriyay qodobada ay isla qaateen dawladda hoose sidoo kale shirkada dayb in meeshu ay tahay hanti dawladeed waxaana mas'uul ka ah dawladda hoose burco oo qodob koowaad qodobka labaad maamulka kawaanka waxa iska leh waa cid maamulaysa waxa maamulaya kawaanka oo maamulkeeda leh shirkada dayb waxa dawladda hoose ee burco ay kaga kiraysa $1,300 bil walba shan dawladda hoose inay soo xarayso xoolaha lagu qaraayo banaanka lix in dawladda hoose ay qaado xashiishka aan dareere ahayn waa ka qalalan toddoba in wixii dayactira ee ay gelinayaan shirkadda la isla ogaado waxa ay haddii ay shirkaddu ka soo bixi weydo heshiida kor ku xusan waxay noqonaysaa in heshiiskani uu buray haddii dawladda hoose waajibkii lagu lahaa ka soo bixi weydo waxaa loo noqonayaa gudoomiyaha gobolka togdheer muddada laga kireeyay heshiiska ee dawladda hoose ay ka kiraysay waa 20 sano qodobka 12 amniga meesha waxaa ka mas'uula dawladda hoose burco dhinacooda waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha dawladda hoose Usmaan Maxamed Sheekh Usmaan maayirka xigeenka degmada burco Maxamed Xasan Shaama Xoday iyo sidoo kale maayirka degmada burco Mudane Maxamed Cabdiraxmaan Yuusuf Muraad waxayna dhamaantood halkaasi ka sheegeen inay maanta si rasmi ah loo soo afmeeray isfahan la'aan soo kala dhex gashay dawladda hoose degmada burco iyo sidoo kale shirkadani xoolaha dayb gaar ahaan noo khuseeyo haddaanu maamulkii dawladda hoose nahay waxaanu si toos u ballan qaadaynaa inaanu dhinacayaga fulinayno aanay naga dhamaanayso waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo oo cid waliba ay ilaaliso hadday tahay shirkada dayb hadday tahay golaha deegaanka hadday tahay xanaanada xoolaha cid waliba inay ilaaliso qodobadaas oo qodobada la ilaaliyo maanta waa go'aan farxad leh oo u soo hoyday magaalada burco wasiirada waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala abaalkeeda iyo ajarkeedaba ha ku siiyo dad madaxa iskula jiro madaxa la isu geliyo isku qoosmay oo waxay kala yihiin la garan waayay baan ahayn oo annaguna xaqlayaal ahayn rag kale oo xaqlayaal marka lagu soo sheegay madaxa la isku geliyo maanta hadii annaguna aanu xaqla noqonay raggii kale shirkaduna ay noqotay rag shirkadooda xaqla ka ah oo aan saaka waxba iska ka khaldanayn waxna aanu ku heshiinay 12 qodob aan ku heshiinay ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa subxaanahu wa ta'aala haday u baahato magaalada kawaanka la sameeyo waa ballaarinta beenma waliba maanta kawaan kaliya maanta aan u baahnayn kawaan kaliya way u baahantay qaar kale maanta u baahantay qaar kale la sameeyo hadii ay suurtagal noqoto in qaar kale la sameeyo waa la sameyn karay maaha kaasuunba kooto ugu xidhnaanayay shirkadda gabagabadii waxaa hadalka soo afmeeray barasaabka gobolka togdheer xamsan maxamed cabdi iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland oo iyadu muddo 7 caanamal u joogtay xalinta khilaafka shirkada dayb iyo sidoo kale dawladda hoose iyo sidii bulshada reer togdheer u heli lahaayeen kawaan ay ku qashaan xoolaha hilibka aanu dardargelinay oo maaragtay in dhaqso looga hawlgalo aanu u dardargelinay annagoo ku xisaabtamayna waqtiga roobka inaanay jiri doonin xoolo dambe oo banaanka lagu qalo qodobada heshiiska oo ay 3 geesood maaragtay u saxeexeen wasaaradda xanaanada xoolaha dawladda hoose iyo shirkada dayb laga bilaabo maanta ayuu dhaqan galayaa anigu runtii halkan waxaan jecelahay inaan uga mahadnaqo dadkii hawshan ka soo shaqeeyay oo koow ay ugu mudan tahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha xildhibaanada iyo maaragtay meeyarka iyo meeyar ku-xigeenka dawladda hoose oo iyaga laftooda arrintan mudlig u ahaa waxaanu gobolkana wax weeyaan roob baa imika soo socday ninkan arkay caafimaad darro ayaa ka dhacaysa gobolka caafimaad darro hadday dhacdana wax weeyaan xukuumaddii baa dadkii ka mas'uulay ilaahay baa inaga wada mas'uulay marka inaan burcada meel walba waliba neefkeeda aanay ku qalan amba koona walba aanu islagaga soo daadin waa koowaadeen ahmiyadda saarayeen 7 habeen u dib jirnay si aanay xanuun ugu soo noqonin gobolka togdheer burco sideedabana sanitationka caafimaadku waxay ku wanaagsan yihiin goobaha loogu talagalay Ahmed Shaam Aadan Ahmed Digro telefishinka caalamiga Soomaaliland TV burco